الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا صلوات ربي وأزكى تسليماته القائل: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala rabulciza jala jalaaluh wuxuu ammaanay oo ammaan gaara oo u soo jeediyey dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan xusa. qofka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala rabulciza jala jalaaluh in badan uu xuso, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday lacalakum tuflixuun, waad liibaanaysaan, guul iyo sharaf ayaa gaaraysaan haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aada in badan xustaan. wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rabulciza jala jalaaluh uu ballan qaaday, dadka muuminiintana uu u ballan qaaday in haddii gabdhaha muuminaadka ah iyo wiilasha muuminaadka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ay xusaan, abaalmarinta ilaahay uu siin doono inay ka mid tahay liibaan, inay ka mid tahay ajar weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday, inay ka mid tahay dembi dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siinaayo. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. wiilasha ilaahay subxaanahu wa tacaala xusa iyo gabdhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xusa, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaalmarinayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siin doono ajar, ajarkaasoo asaguba uu ku tilmaamay inuu yahay ajar aada iyo aada u weyni badan. wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamay inuu siin doono gabdhaha ilaahay xusa iyo wiilasha ilaahay xusa dembi dhaaf, dembi dhaafkaasoo runtii aada iyo aada u qaymo badan, aada iyo aada u weyni badan. marka qof kastoo muumina waxaa looga baahan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u xuso. hadduu guriga ka soo baxa ilaahay u xuso, hadduu guriga galayo ilaahay inuu xuso, hadduu waddada marayo ilaahay inuu xuso, hadduu masaajidka soo galayo ilaahay inuu xuso, hadduu masaajid ka soo baxayo inuu ilaahay xuso. mar walba xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad daa'imtid. ilaahay waxyaalaha uu kugu amaalmarin doono waxaa ka mid ah haddaa ilaahay xustid in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siin doono jannadiisa, inuu ku siin doono weliba jannada irdaheeda mid allaala midaad rabtid inaad ka geli doontid, midaad doonaysa inaad ka geli doontid, midaad raadinaysa inaad ka geli doontid. waxaa arrintaasna noo sheegaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam sala allahu wasalam calayh fi lxadiidi aladii rawaahu muslim wa asxaabu sunan من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. wuxuu leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam, qof allaala qofkii muslim ah oo intuu weyse qaata, weyse qaadka aada iyo aada u weyse qaato oo wanaajiya, weyse fiican la yimaada, ilaahay wuxuu ku abaalmariyaa markuu adkaartaan akriyo
intuu si fiican uu soo weyse qaato hadduu adkaartaan akhriyo uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh sidaas qofkii yidhaahda markuu intuu soo weyse qaato ilaa hadduu yidhaahdaba futixat lahu abwaabu ljannati athamaaniya 8 albaab ee jannada ayaa ilaahay u furin 8 albaab oo jannada ayaa ilaahay u furin haddaad ilaahay aa xustid yadkhulu min ayiha shaa mid allaala miduu rabuna ka gelin haddaa rabti baabu rayaan ayaa ka gelin haddaa rabti firdows laclaa ka gelin laakiin waxay kaaga xiran tahay inaad si fiican u weyse qaadatid adkaartaana aa akhrisid wuxuu ilaahay kugu abaalmarin doona waxaa ka mid ah jannadiisa aada iyo aada u qiimaha badan leh aada iyo aada u sharafada badan leh muuminiintiisa ugu talagalay haddaa ilaahay xustid arrintaas waxaa ku tusinaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam sala allahu wasalam calayh oo xadiidkii uu warinaya shadaad ibnu aws min xadiidi albukhaariy والنسائي نبي عليه الصلاة والسلام شداد بن أوس وحكورين سيد الاستغفار وحير النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عليه النبي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمنك هدو قرته إنه ضعيف يهي إنه سأود لهين نعمة إلهي أوسينا إلهي أوقرته إلهي وحكو أمال مريا سيدة لكن مركو هارين وإنا فهمت وحلق أهرب اللهم أنت ربي إله ربك يا تاي لا إله إلا أنت خلقتني إلهك لم يجر إلا عظيم ما هنه خلقتني ويا أبورتي وأنا عبدك دونك هاي وأنا على عهدك بلنقاتك ينقص غناي يا وعدك يا بوهاجي ما استطعت أنت أعوذه أعوذ بك وحكام مجنجلين من شر ما صنعت وحي أنسن عيي لباتليدا يا دبكيدا يا كام جلين أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وحنكرك وقر سنة يا إله يوم نعمة آئسي سوى وقر سنة هاي وأبوء بذنبي إله ذنبك أنا وقر سنة هاي فاغفر لي إله إيد مداف فإنه لا يغفر الذنوب ذنوب تمدافو إلا أنت عظيم مهانه سيدات هدات ترادد نبينا عليه الصلاة والسلام حلية دعاء صغفك أغرية من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة قفك ما أنت يرادا أصوى يقيسا دعاء الدعاء ترتئن إتهاي أصوى يقيسا قفك ما أنت يرادا إسلام ما أنت أصلا دينتا انتو سمقربك يا قلبك وسجارين فهو من أهل الجنة أهل الجنة أيوك مديان ومن قالها من الليل قفك هبينك يرادا وهو موقن بها أسوى يقينسا أو قلبك كوهيستا قيمه ذي شرفت هذا إيا وحى نبي الله محمد وكوب الانقاضي فمات من ليلة قبل أن يصبح همين كينا انت صباح ذي لقارين فهو من أهل الجنة أهل الجنة أيوك مديان ووحى إلهي سبحانه وتعالى مركا إلهي حستد وإلهي سبحانه وتعالى كوكو أمال مرين دونه وأمال مرين إلهي وكسين دونه وقيمين إلهي وكوكو شرفي دونه وحيالا إلهي وكسين دونه وحاكم ذا إنه إلهي كوكو أمال مرين دونه غفران الذنوب دنبقاق إن إلهي ودافو هذا إلهي حستد إلهي وكوكو أمال مرين دونه غفران الذنوب ذنوب تاذا إلهي ودافو وحاكم ذا غفران الذنوب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكنت صلى الله وسلم عليه حديث ورنا سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما قفكين هدو عنتو عنه فقال أجرد الحمد لله الذي أطعمني هذا
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلهي أيا مهد إسكاله cuntadaan iquudiyey waxaan isiiyey warasaqanihi igu arsuqay min gayri xawlin xeelad la-aan anugu xeelad aan leeyahay kulama aana imaan awood aan leeyahay kulama aana imaan ilaahay isiiyey ayaa mahadda iska leh maxaa yeelay si kasta haddaa isku daydid inaa xeelad wax kula timaadid ama awood a wax kula timaadid awooddaas ma gaaraysid marka qofka muuminka waxaa looga baahan yahay cuntada markaa cuntida inaa ilaahay barisaa tidhaahdid alxamdu lilaahi aladii acamanii hada warasaqaniihi min gayri xawli minii walaa quwa intaas haddaad tidhaahdid nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay gufira lahu maa taqadama min denbih qofka ilaahay wuxuu u dhaafaa dunuubtiisii hormarta ilaahay waa cafiyaa dembigiisa ilaahay waa dhaafaa dembigiisa ilaahay cafis ayuu u fudiyaa qof allaala qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaada markuu cuntada cuna yidhaahdo sidaas ilaahay wuxuu ku amaalmariyaa dunuubtiisa ilaahay inuu dhaafo ayaa ilaahay ku amaalmariyaa waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mida dembigaaga in la dhaafayo haddaa ilaahay ku xirnaatid mar walba ilaahay aa xustid mar walba qalbigaaga ilaahay uusa ka bixin waxaa ku tusinaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam sacd bn abi waqaas uu warinayay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayay sala allahu wasalam calayh sacdi wuxuu leeyahay qof allaala qofkii idinka in ka mid a oo maqlo qofka mu'adinkaa idaa samica axadukum almu'adin qofkiin hadduu mu'adinka maqlo faqaala uu yidhaahdo markuu maqlo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام نبيا intaas qof allaala qofkii ummadayda ka mida oo yidhaahda markuu mu'adinka maqlo mu'adinka markuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah qof allaala qofkii markuu maqlo yidhaahda mar allaala markuu intaas qofka mu'adinka uu yidhahdo qofkii yidhaahda wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah radiitu billaahi rabba wa bimuxamadin rasuula wa bilislaami diina waa kelimaad gaaban wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah radiitu billaahi rabba وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا انتاس قفك يرادا غفر له من ذنبه وحلو دافا قفكاس وحلو دافا ذنبكيسا غفر له ذنبه ذنبكيسا إلهي ودافا إلهي وحسيا غفران الذنوب إلهي وعفيا قفكاس عفس يا إلهي وفضيا مرك وحي كمتا حسدا هدا إلهي حسد وحيابا إلهي وقوام مرناي waxaa ka mid a haddaa ilaahay xustid waxyaabaha ilaahay kugu haalmarinaayo ilaahay inuu ku siin doono hanuun ilaahay inuu ku siin doono kifaaya inuu ku kaafinaayo cadowga kaa kaafinaayo arsaaqda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa kaafinaayo waxaa ka mid a ilaahay waxa uu ku siin doono wiqaaya ilaahay inuu ku dhowri doono shayaadiinta kaa dhowri doono cadowga kaa dhowri doono bahallada kaa dhowri doono xaasidiinta ilaahay kaa dhowri doono haddaad ilaahay xustid waxaa ka mid a ilaahay wax uu ku siin doono in shayaadiintu ay kaa fogaan doonaan shayaadiintu inay kaa cararayaan shaydaanku mar allaala markuu ku arko adoo soo socda inuu dhinaca kale u carari doono laakiin waxaa kaa xiga inaa ilaahay xustid xusida ilaahay subxaanahu wa tacala inaa ku dadaashid waa ka nabigeena calayhi salaatu wasalaam sala allahu wasalam calayh uu leeyahay man qaala xadiidu anas bni malik radia allahu canh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته قف الله على قفك مركو قرقي سكبح إياده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قفك السداس يقال له إلهي وحوير هذا هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان إلهي وحكام أمر يقفك بسم الله توكلت على الله
walaa xawla walaa quwata ilaa billaah markuu gurigiisa ka baxayo qofkii yidhaahda ilaahay amaalmarin wuxuu siiyaa kow ilaahay hanuun inuu siiyo labo ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbulciza jala jalaaluhu inuu ku amaalmariyo in kifaayo la siiyo arsaaqdii iyo wixii dhibka uu ku raadin lahaa ilaahay si sahlan inuu ilaahay ku siiyo saddex ilaahay wuxuu siin doonaa alwiqaaya min alacdaa cadowga ayaa ilaahay kaa dhowri doonaa afar ilaahay wuxuu ku siin doonaa atanaxi cala shaytaan shaydaanka ilaahay wuu kaa dheerayn doonaa shaydaanka ilaahay wuu kaa fogayn doonaa laakiin waxay kaaga xiran tahay bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah waa ka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waxaa loo odhan doonaa yuqaalu lahu qofkaas waxaa loo odhan doonaa intaas markuu akriyo hudiita waa lagu hanuuniye wa kufiita waa lagu kaafiye wa wuqiita waa lagu dhowray watanaxaa canhu shaytaan shaydaankuna waa ka fogaadaa shaydaanku waa ka cararaa shaydaanku waa ka durkaa riwaayo kale oo tirmidi uu sunankiisi ku warinaya wuxuu leeyahay laba shaydaana qof walba la socota labadaas shaydaan labadooda waxaa la yidhaha shaytaan ulins iyo shaytaan uljin insigana shaydaana kaala socda jinkana shaydaana kaala socda labadooda marka kan inuu kulumiyuu rabaa kana wuxuu rabaa inuu u fududeeyo labadooda isla hadla marka shaytaan ulins ayaa waxaa la ara shaytaan uljin wuxuu leeyahay kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya warniyow sidee u qaban kartaa oo ay suurtagal nugu tahay inaan qabanno ama aan lumino ama aan dhibaato u geysano ama aan dhib u geysano qof ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbulciza jala jalaaluhu uu hanuuniyey rabbulciza jala jalaaluhu qof uu dhowray rabbulciza jala jalaaluhu qof uu kaafiyey miyaan qaban karnaa waar naga keenu leeyahay waa ka cararayaan labadooda intay dhuusa isku sii daayaan ayay cararayaan kana fogaanayaan meesha waa amaalmarinta ilaahay qofka bini aadanka uu siinaayo waxaa ka mid ah amaalmarinta ilaahay uu ku siinaayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala shayaadiinta gurigaaga uu ka ilaalinaayo caruurtaada ilahay inuu ka ilaalinaayo ahlu beytkaaga ilahay inuu ka ilaalinaayo aswaajta ilahay inuu ka ilaalinaayo walaalaha ilahay inuu ka ilaalinaayo asxaabta ilahay inuu ka ilaalinaayo gurigaaga mar walba waa ilaahay ku xirnaatid ilaahay subxaanahu wa tacaala aa xustid dadku waxay noqonayaan dad aqwiyaa dad xoog leh dad awood leh dad shayaadiintu aysan u soo geli karin dad aysan shayaadiintu awoodin inay guryaha u soo galaan ayay noqonayaan laakiin waxay kaaga xiran tahay ina ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbulciza jala jalaaluhu aa ku xirnaatid aadna noqotay qof ilaahay ku xiran mar walba ilaahay xusa waxaa ku tusinayaa arrintaas xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sala allahu wasalam calayh oo uu warinaya jaabir bni cabdillaah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka warinaya bukhaari xadiidka bukhaari ayaa waxaa warinaya muslim waxaa kaloo warinaya xadiidka tirmidi waxaa kaloo warinaya ibnu maaja nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxaa ka warinaya jaabir bni cabdillaah wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala arajulu beytah falam yadkur illaha tacaala qofku hadduu addoonku uu galo gurigiisa hadduu galo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusa xusin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xuso idaa dakhala arajulu beytah fadakara allaha tacaala cinda dukhuulih markuu guriga gelaayana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xuso shaydaanku waa hadlaa qaala shaydaan asxaabtiisiyuu la hadlaa wuxuu yidhaha laa mabiita lakum walaa cashaa meel la seexdana ma leh cuntana lama arko wuxuu suu yaraa asxaabtiis wuxuu warray bannaanka dhoobta war meel la seexdana ma leh cuntana lama arko laakiin hadduusa addoonku xusin ka waran waidaa dakhala falam yadkur illaaha tacaala hadduu addoonku galo guriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uusa xusin ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa uusa sheegin oo uusa dhihin bismi illaahi walajnaa wa bismi illaahi kharajnaa wa calaa rabbinaa tawakalnaa hadduu sidaas dhihin oo ilaahay magaciisa uusa ku gelin markuu guriga gelaayo shaydaanku wuxuu la hadlaa asxaabtiisii wuxuu yidhaha adraktum lmabiit meel la seexdo waa hesheen war waa liibaanteena kaalaya war caawa islaantaan la wadaagaynaa war caawa carruurtaan ka tashwiish gelinaynaa war asagay islaantaan isku diraynaa asagay carruurtaan isku diraynaa asagay ahlu beytkiisaan isku diraynaa cuntada loo barakay maayo waidaa dakhala hadduu galo falam yadkur illaaha tacaala cinda طacaamih cuntadiisa agtiisana ilaahay uusa xusin
قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء شيطان كوحي هذا ورمال السيحدنا واهشان عنتنا وديار السودة وهذا ورعنتنا وديار مال السيحدنا واهشان السودة وهذا واسكوها له إذا مركب حلا يعربا إن هداربت أهل بيت كاجا إلا بباديو قبلها الجنك وكالله الجنك إلهي كبباديو كوا يرالك وكوجو إلهي وبباديو حاسسك إلهي بباديو شقاق يا خلافك إلهي إنك إلهيو عنتظر إلهي سبحانه وتعالى ودين بركايو طعامك طعام بركيسن إلهي إنك يدي هدا دون يسيد وحي إلهي وكوا مع المرين دون وحي إلهي وكنورو لكن وحي كاجا حرنتاي مركا غريغا جليسيد إن إلهي سبحانه وتعالى أحسد حسد إلهي سبحانه وتعالى هذا كتجين هذا نقول قف ضيسته مركا غريغا جليس بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا بسم الله ولجنا إلهي مقعيسا كقلنا وبسم الله خرجنا إلهي مقعيسا كبحنا وعلى ربنا توكلنا ربي قلنا واتلصارنا انت هدات رادي شيطانك وعرر شيطانك وفقان أهل بيتك سوء قلي ماي أخيارته سوء دح قلي ماي قري قدن وكعرر عررته وبركيسنانا يا أذكارته فضلانيسا لكنها نقوم قفك فقاده إلهي سبحانه وتعالى قف كحرنا هذا النقو رب العزة جل جلاله إلهي وحقوق أمال مرين دونه وحاكم ذا هدا كد داشي إلهي كحرنان تيسا حسك إلهي سبحانه وتعالى كد داشي وحياما إلهي وحقوق أمال مرين دونه وحاكم ذا إن إلهي سبحانه وتعالى وقائل لين دونه عذر هذا سوبود ذا وحا دريميسين دي كركة ها هاتو دي كركة سوبود ذا سكرت سوبود ذا ها هاتو حنونا هذا فيروسك بلايد الأشياء هذا وحول بإلهي سبحانه وتعالى وكائلال لكن وحي كاغا حرنتين إلهي كحرنات مرول بإلهي سبحانه وتعالى أحسن وكان نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه أصوى كشيكينا وحلياي قفك مؤمنك هدو إراد الصبح مركيتاي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدح برقفك يرادو لم تصبه فجأة بلا يدك دي غفوكم دعبه إلهي بلا يدك دي وكإلاليا قلبك صبح هدات رادو إلا قلبك أكقارتي مغربك إلهي بلا يدك دي وكإلالنا مغربك هدات رادو عاونا إلهي بلا يدك دي وكإلالنا وحن سوبوددا عوران سوبوددا ودنا عرقتي إلهي وكائلنا حديثك وحا ورنا ينيل يرى أبان بن عثمان وحو كورنا سيدنا عثمان بن عفان سيد عثمان وحو كسي ورنا يا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه أبان مركا وحا كنا عيدي كر أيا كنا عي براشر أيا كسو بودي لوك إيا قعان أيا قلالين أبان وحديثك ورنا أو سيد عثمان كورنا أبان ننكي وشيغاي أيا حوغا سؤالك صلابت وحير أبانو وفيري آد أيو فيري مركو آد وفيري وحو كيري أبانو حديث كذا إي شيء جاي أذيك اللي فترك واكن اللوجي قعنا وكو قلنا دي أذو محل دفاع واي أذي اللي فترك اللوجي قعنا قلنا حديث كذا سي عثمان أي شيء سي عثمان النبي عليه الصلاة والسلام وكاجا شيء سي حالة داس توير أبانو وركاس ورق جلاي ما هني إما جلي كره وركاسي وحو كيري ورديم كلمة جرو أنا واحد أيقو أركيسيد هذا كم إذا أيام وير ولا لك إسكو حناقني أنا يا سيد إسكو حناقني مركز واحد هالماوي أذكرت أني هيرهضو مركز أنا حناقسن وأذكرت هنا إسكيل ماوي أيام يمينك براشر كي يقول لو يقع عن تاسيغ يمينك يا هالماوي لو هذا آخر لها إلى ويقع حفظ لها سو ما ركيد مركو حلا يا واحد عذر أدري بيسيد واحد كبق يسوق هذا هو عبسية وضلك وتم فيروس وحده شنطة غوك وكسب بوده أذكرتها كتني إلى يكحرنو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صحابي ويناي مجاهد كخالد بن وليد أي واحد الله كان ليري جلاس أو أي كتشرتو صن أي كتشرتو مركز واحد يهدي النبي إنه ورش يجايو جلاس كان صن بكتشرتي عبد مركز وحوسم يالي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدح جارو أخري مركو صدح جار أخري أنا واحد على حبك ما نبين مركا إيمان قوي هذا التي مادد إلهينا أكو كل سونات مر والبني إلهي أحستد
abaalmarinta ilaahay ku siina waxay tahay wax cudur ilaahay inuu kaa dhowro gurigaaga ilaahay inuu xifdiyo gurigaaga ilaahay inuu dhowro laakiin xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala ay kaaga xiran tahay inaa ilaahay xuskiisa ku dadaashid waxaa ku tusinaya xataa waxaa la baxdid haddaa weydid waxaa la baxda xataa wixii aan la bixi lahaa haddaa weydid waxa ilaahay ku siiyey waxaan adkaartaana ilaahay ku siiyey ilaahay xuskiisa ha ka tegi waa ka nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii qayb ka mid oo waxba haysan ahlu fuqaraa ayaa nabigu u dacwaday yaa rasuula allah dahaba ahlu duhuuri bilujuur dadkii maalka u saaxiibkaa ajarkii ayagaa qaatay waa soomayaan sidaan u soono wayna sadaqaysa waa soomayaan sidaan u soono way salaadayaan sidaan u salaadno waxayna sadaqaysanayaan maalkooda dheerigahana waa sadaqaysanayaan annaguna waxaan la baxno lama arko nabiga calayhi salaatu wasalaam jawaab deg deg ayuu siiyey awalaysa qad jacala allahu lakum maa tatasaddaquuna bih war ilaahay soo idiima samayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala idima samayn waxaa sadaqaysataan maxaa ka mid a ina bikulli tasbiixatin sadaqa tasbiix karta subxaana allah markaad tidhaahdid sadaqay kuu noqoneen wabikulli taxmiidatin sadaqa xamdi kastoo alxamdu lilah aad tidhaahdid sadaqay kuu noqoneen idan sadaqaaba haysataa maantoo dhan tiris ku jir intaasoo kunoo waxaan akhriyey xamdiya intaasoo kunoo waxaan akhriyey tasbiixa intaasoo kunoo waxaan akhriyey wanaaga intaasoo kunoo istikfaaraan akhriyey ilaahay adigana maxfuudaa noqonaysaa markaasi haddana asxaabtii way sii dacwoodeen waxay yidhahdeen walaalehana waxay maqleen nebi allow sadaqada aad sheegtay markaasi waxay sameeyeen himiinkii masaajidkii nala soo galeen tasbiixda aan samaynay sameeyeen taxmiidda aan samaynay sameeyeen takbiirta aan samaynay sameeyeen nebi allow maxaan samaynaa nebigu wuxuu yidhi dalika fadlu llahi yu'tihi man yashaa waa fadli ilaahay qofku rabo inuu siiya ilaahay dheeraadku rabo qofku rabo ilaahay ku abaalmariyaa waxaas wax ilaahay u bixiyo soo maa qofku inuu cibaadada kaaga horeeyo sadaqadii uu kaaga horeeyo soomkii uu kaaga horeeyo salaadii uu kaaga wax kasta uu kaaga horeeyo dee waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala taas uu bixiyo qof wuxuu bixiya ma ahan haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba xustid xuskiisa aa ku didaashay keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu abaalmarin doonaa maanta yowmulqiyaama markaad timaadid waxaas aa akhrisay wax ka wanaag badan qofna inuusan la imaan ilaa qof intaa akhrisoo kala akhriyey ama kaa badiyo maahane arrintaas waxaa ku tusinaya xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sala allahu wasalam calayh qofku hadduu yidhahdo maantii subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim mi'ata mara 100 jeer kaliya qofku hadduu yidhaahdo markuu adduunka joogo lam ya'ti axadu yowma alqiyaamati biafdala mima aataa bihi qof lama yimaado waxa uu la yimid wax ka fadli badan lama yimaado ilaa rajulun zaada maa calayh ilaa qof ka siyaadiyey inta uu akriyo kale maahane idan ku didaal walaalkayow intaa adduunka joogtid inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaatid cibaadada inaad ku didaashid inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba xuskiisa inaysa afkaaga ka bixin haddaa ilaahay xusti ilaahay wuxuu kugu amaalmarin doonaa mar walba oo ilaahay xustid inuu asna ku xuso maxaa ka wanaag badan ilahay magacaaga hadduu sheego maxaa ka wanaag badan ilahay haddaad ku xiran tahay maxaa ka wanaag badan waxa aad samaynaysid tusaale kaliya u soo qaado alyawm aljumca nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo jideeyey maanta yowm aljumcada 2 shay ina aad u badino qiraa'atu suurati lkahf suuratu lkahf ina aad u akrino kow iyo wasalaa cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan ku sallina maanta jumcada haddaa isweydiisa marka suuratu lkahfi ma akrisa mise maada akrin ina akrisi intaa iska daysi waxaa laga yaaba masaajidka inaad kasoo dahdid salaada jamaacada inaad dib ka timaadeen laga yaabaa oo suuratu lkahfi ay ku dhaafto wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam sala allahu wasalam calayh man qara'a suurata alkahfi yowma aljumca adaa'a lahu nuuru min aljumca ila aljumca nuur ayaa ilaahay u iftiimiya qofka suuratu lkahfi akriya maanta jumcadaas laga bilaabo ilaa jumcada kale laga gaaro haddaa ku shakisan tahay meeshaan ganacsiga ma gashaa mase waa iska daysaa haddaa ku shakisan tahay suuratu lkahfi haddaa soo akrisay ilaahay nuuru ku siinaa haddaa ku shakisan tahay islaantaa ma guursataa mase waa iska daysaa shakiga hadduu ku galo suuratu lkahfi haddaa soo akrisatay ilaahay nuur ayuu ku siina ilaa jumcada kale laga gaaro haddaa ku shakisan qofkan xiriir ma la samaysaa mase waa iska daysaa haddaa suuratu lkahfi akrisatay ilaahay wuxuu ku siin doonaa nuur iftiin aad ku kala garatid waxa xun iyo waxa wanaagsan aad ku kala garatid marka qof kastoo muumina waxaa looga baahan yahay in uu noqdo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran uusan noqon qof
markii ay kugu soo dhacday ilaahay soo xasuusta dhibku markuu kugu dhaco kaliya ilaahay xasuusta aadan noqone mar walba ilaahay inaad ku xiran tahay mar walba ilaahay inaad xiriirisid ilaahay haddaa xustid ilaahay mar walba haddaa xustid xaaladda dhibaatada ay timaado asna wuu ku xusin ilaahay wuu kuu gargaarin xaaladda dhibaatada ay timaado laakiin xilliga dhibku u yimaado kaliya haddaa ilaahay xustid waxaa kuu soo baxaysa meel cilaa waxaan gelaynaa insha allah khudbadeeni wajazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wa tacaala dunuubteena allah isku dhaafo majmacaan ku kulansanna ilaahay subxaana wa tacaala qof walba oo meesha yimid dembigiisa allah dhaafo ilaahay dhammaanteen dembigana allah isku dhaafo maanta jumcada ilaahay gufraana dunuub allahna siiyo sida aan meeshaan isugu nima annagoo dembigana u dhaafsan yahay allah naga celiyo wasala allahu ala alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin